waxaan goobjoog u ahayn annagoo dhan habeenkii baashaalka iyo weliba bandhigii goolasha ee xidigahu Isbaanishka iyo fagaaraha weyn ee Stamford Bridge iyagu ayaana ku barbartay marka la eego kooxda Crystal Palace oo marti ugu ahayd garoonkooda weliba goolka koobaad daqiiqadii 32 waxaa dhalinteeda lahaa Alvaro Morata iyadoo kaalinteeda shaqana uu ka soo baxay Pedro. Pretty calmly, he didn't thrash at it, he made sure, and this spell of pressure has broken Palace's resistance. qaybta hore waxaa lagu kala tagay heer Chelsea oo isa siinayaba in ay guuleysteen hase yeeshee isku soo noqodka qaybtii labaad waxaa dhacdayba in gool uu kaga naxsado goolhaye keeper Townsend is in here for Crystal Palace and he's equalised. Excellent finish in front of the Palace fans. ciyaartu waxay noqotay gool iyo gool oo Herpalu inda ka soo haray hase ahaatee macallin Mauricio Sarri waa uu ahaan weysayba in kursiga kaydka uu fadhiyo Eden Hazard uu wuxuu ku soo geliyay badal isagu ayaa noqdayba mid wax badan ka bedelay natiijada ciyaarta cross uu soo saarayna waxa in lugta bidix ku cishtay darbana laqsiyay goolkii Crystal Palace Alvaro Morata. Gives Chelsea gets another one and it's Chelsea who lead 2-1. daqiiqadii 7aadna waxaba u saddexeeyayba Pedro. Morata but coming in behind him with Pedro and it's 3 for Chelsea. He gets the run on Sacco in the middle. si kasta oo ay wax noqdaanna waaba xilli ciyaareed aan la hor istaagi karin xilli ciyaareedkan xawaaraha guulaha ee kooxda Chelsea waxaana toddobaadka 12aad ee horyaalka Premier League dalka Ingiriiska qaasatan maalintu Axadda 11 iyo qadar 15 daqiiqo garoonkeeda Stamford Bridge mar kale ay ku soo dhaweyn doontaa kooxda aadka u weyn ee lagu magacaabo Everton sidoo xaal noqon doona waa waxa aan isweydiinayno annaga oo dhan.